habeenada kala ah jimcaha sabtida iyo axadda waqtiga salaadii barkii la barkii ka dhaxaysa kusoo dhawaada maanta oo tahay taariikhda 16 bisha May 2022 insha Allah waxaan ku geli doonaa barnaamijkeena qaado oo kala kalmay waxaan nagala qayb qaadan doonaa insha Allah Maxamed Kay oo sheekeen public health expert caafimaadka bulshada marka saa oo nagala qayb qaadan doonaa insha Allah aniga magacayga Cabdifataax ali yiraahdaa waxaan dulmari doonaa insha Allah statistics ahaan sidoo xanuunkan COVID-19 caalamka u saameeyay iyo sida dhimashada iyo dadku haleelay cudurkan COVID-19 oo caalamka dhan waxaana aad u saari doonaa insha Allah meelaha Soomaalida ay degaan waayo anaga Soomaalidu ma noqosay Soomaalidu ma ka hadli doonaa marka insha Allah barnaamijkeena 3 qodob ka koobnaan doona qaybta ugu hore waa qaybta aan soo tarin doona oo COVID-19 ka caalamka iyo Soomaalida meelaha ay degta sidoo ku kala dhacay qaybta labaadna waa insha Allah Maxamed Kay oo taadin doona barnaamij ugu talagalay in uu bulshada wacyigelinta kala qayb qaato qaybta saddexaadna insha Allah waxay noqon doontaa su'aal iyo jawaab oo ugu talagalay dadka marka bal insha Allah waxaan u gudbin doonaa barnaamijkeena labaad Maxamed Kay ayaa noo wadi doona insha Allah Kay ku soo dhaw insha Allah أولا دمانتين السلام عليكم سلامك بعدنا دخاتير تشرفت له يدد وينها شرفت له كسو قيب قلي دمانتين آديات باندي سلامية واحد لي هواد ما تسنتيهين رمضان كريم يو برنامج كان كسو دوادا كارهان تدوينه إن أرين كان عاوينو كهاد لينو oo COVID-19 oo ku saabsan wacyigelinta waxaan jeclahay inaan 3 arrimood ku soo qaato 3 arrimood waxay noqon doonaan insha Allah qaybta hore horudhac guud ahaan ku saabsan COVID-19 oo arar ama horudhac qaybta labaadna waxay noqon doontaa ujeedooyinka laga leeyahay xirxirkan bulshadii la kala xirxiray ama heer caalami ha ahaato ama heer state ama heer gobol ama heer wadan ha ahaato maxaa looga jeedaa goorma la furfuri doonaa taas ayaan ku kala dhigi doonaa haddii alla yidhaa qaybta saddexaad waxaan soo qaadan doonaa modelka qorshaha ugu wanaagsan ee caafimaad loo manage gareeyo si looga hortago xanuunkan ama cudurkan COVID-19 taasi waa qorshaha guud oo 3 qodob xanuunkan ama cudurkan la yidhaahdo COVID-19 waxaa loo wanqalay oo magaca loo bixiyey oo u bixiyey World Health Organization oo ah ururka caafimaadka ee adduunyada markay taariikhdu ahayd bishii labaad sanadkan 11 2020 taas oo ka dambeysay markii 31 December 2019 Shiinuhu ku dhawaaqay inuu wadankiisa ku arkay ama uu soo galay ama ay arkeen xanuun ama cudur cusub oo aan la garanayn kaas oo u eg ama shabaha hargabka taas oo markaa ay ogeysiiyeen World Health Organization ururka caafimaadka adduunka ay ogeysiiyeen oo brotokolku had iyo jeer wadamadu marka uu ku dhaco waxyaabo cusubi waxa adduunyadii caafimaadka ka mas'uula World Health Organization in la wargeliyo lala tashado procedure-kii ayay fuliyeen waana yeeleen ka bacdi waxa dhacday January 7 Shiinuhu waxa uu xaqiijiyay in xanuunkan yahay coronavirus cusub oo aan hore loo arag waxa halkaa ka cad marka coronavirusku waa 3 ilaa inta imka loo yahay oo ah kii SARS-ka dhaliyay oo 2003 oo China ka dhacay iyo kii 2012 oo ka dhacay Saudi Arabia kan marka waa laba laakiin waa nooc gooniya oo cusub aan hore loo arag
okay sababta loogu bixiyey coronavirus guud ahaan micnihii marka lagu eego weyneyso oo aan noocyadan waxyaabaha ugu yaryar ee viruska oo kale lagu arki karo marka lagu eego qaabka iyo shape-ka uu leeyahay ayaa ah crown marka afka laatinkana waxaa loo yaqaanaa crowna marka sidaa awgeed baa loogu bixiyey coronavirus oo halkaas ayuu magacana ka qaatay dabeetana waxaa dhacday bishii January 11 dhimashadii ugu horreeyay China ka dhacday oo qofkii ugu horreeyay ku dhintay taas waxay keentay marka haddana January 12 in Chinese-ku gaadhay guushii ugu weyneed oo ah inuu helay oo xaqiijiyey waxaan loo yaqaano genetic sequence oo coronaviruski essential proteins uu ka kooban yahay siday isugu rakiban yihiin siday u kala horeeyaan oo deetana uu taal la wadaagay caalamkii oo dhan ogaanshaha taal ogaaday micnaheedu markaa waxay noqonaysaa oo wadamada kale marka lala wadaago in la sameeyo diagnostic kitkii wax lagu baari lahaa referencekii ayuu noqonayaa kan la helay imka marka xanuunkan hadda qofka dadka laga qaaday muxuu ahaa dheecaanka ee la eegayo waxaa loo eegayaa kii hore ee China laga keenay oo soo gudbiyey marka taasna wadamadii ayay la wadaageen waxay noqotay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ah in xanuunkii la ogaado sida uu samaysan yahay dabeetana waxaa loo samayn karaa marka wixii tallaala wixii dawo ah iyo testing oo loo isticmaali karo marka in qaabkii loo samayn lahaa kabacdi waxaa dhacday January 13 15 iyo 20 waxaa lagu arkay Thailand Japan iyo South Korea intuba waxay ka yimaadeen marka xanuunadaas Wuhan oo ku dhacay China China ku dhacay ayuunba u soo gudbay isla isagii oo waxba kaga bedelnay wuxuu soo galay Mareykanka January 15 20 waa la xaqiijiyay waa kii China ka yimi ayuunba soo galay taas waxay noqotay marka xanuunkii ama cudurkii inuu adduunyadii oo dhan ku baaho oo ku fido oo noqdo pandemic marka ay xaaladaha saas u kala dhacaan oo emergency situations aankaasi dhacaana hogaankii caafimaadka waxa qabanaya World Health Organization oo arrimaha adduunyada u qaabilsan oo adduunyada u qaybinaya 6 qaybood Africa, America, Eastern Mediterranean, Europe, Southeast Asia and Western Pacific so 6 region ba waxa uu ku leeyahay World Health Organization xafiis wadan kasta oo ka siimida qaybahana waxa uu ku leeyahay xafiis marka World Health Organization waxa uu gudbinayaa wax alla wixii macluumaad ah oo hayay expertise iyo wax kasta wadamadii iyo regionski wax alla wixii akhbaar hayeen uu ka soo qaaday marka isaga ayaa noqonaya hogaankii caafimaadka ee adduunyada dhinaca kale Mareykanka waxa qaabilsan muxuu ahaa guud ahaan wadanka Mareykanka CDC ayaa arrimaha qaabilsan laakiin state kastaana waxa uu mas'uul ka yahay caafimaadka dadkiisa oo isaga oo madax bannaan arrinkaana waxa siinaya constitutionka Mareykanka wixii markaa dhaqaale ah wixii emergency sanoo kala yimaadana waxa gacan ka geysanaysa marka dawladii dhexe taasi waa nidaamka uu dhisan yahay caafimaadkii oo loo maamulayo markay noqoto adduunyadii iyo gaar ahaan Mareykan aan joogno oo xooga aanu ka taabanayno taasi marka waa hordhicii iyo tilmaantii guud okay qaybteeni labaad ayaan bilaabaynaa qaybta labaadna waxay noqonaysaa marka laga hadlayo caafimaadku waxa loo muhiimka ugu horeeya caafimaadku waxa way qofka bani aadamkii waa inuu caafimaad qaba markaasuu wax baran kara markaasuu shaqayn kara markaasaa dhaqdhaqaaq iyo alif iyo xarakaad iyo adduunya ay jiraysa haddii caafimaad aanu jirin hawlihii kale markaa ma jirayaan soo taasi waxay noo cadaynaysaa in caafimaadku yahay aasaasi caafimaadku waxa uu leeyahay 2 qaybood ama 2 waaxood oo waaweyn labada waaxood oo waaweyn waxa weeye qaybi waa qaybtan treatmentka ah oo markaa qofka bani aadamkii qof marka loo eego dadkii marka uu xanuunsado in caafimaadkiisi loo soo celiyo ama uu soo noqdo oo la daweeyo marka qofku dhaqaatiirtu waa hawsha ay markaa qabtaan marka taasi waa qofku marka uu xanuunsado ka bacdi in baahidiisii loo qabto loo sameeyo hadduu qalin u baahan yahay hadduu dawo u baahan yahay hadduu eegid kale u baahan yahay hadduu laab u baahan yahay
taasi waa weji wey. wejiga kalena waxaa la waa ka hortag oo waa public health, waa qaybtan aan ka soo jeedo. marka public healthku waa ka hortagidii bulshada oo isku duuban oo hala oo guud ahaan loo ilaalinayo, oo tan la hada luqaatu khayr min al-ilaaj or prevention better than cure. marka waa labada qaybood ayuu ka koobay. marka la eegayo marka public health ama caafimaadka guud la eegayo, arrimaha noocan oo kala dhacaan waxay noqonaysaa su-aashu waa maxay dhibaatadu. jawaabtu waxay noqonaysaa waa maxay jawaab celintu. dabeetana su-aalaha halkaa ka soo baxay. now dhibaatadu waa coronavirus oo adduunyadii ku haya dhib badan oo adduunyadii oo dhan ku baahay. jawaabtu waxay noqonaysaa maxaa laga qaban karaa coronavirus, sidee wax looga qabta. su-aasha markaa imanaysa waxay noqonaysaa xanuunkan covid-19 originkiisa halkee buu ka yimid. waa su-aal. waaye waynu ognahay halkuu ka yimi markaa inuu China ka yimi, inuu xayawaan ku jiray usoo gudbay xayawaan kale isagoo mutation qaatay, dabeetana bani aadamka usoo gudbay. inkastoo weli meelo su-aal ka taagan yihiin. waxway xayawaan buu kasoo gudbay, bani aadam buu usoo gudbay, bani aadamkiina wuu isqaadsiinaya ama isqabadsiinaya. so waynu ognahay originkiisi. su-aasha ku xigta aynu doonaynu ogaano transmission route, xanuunkan covid-19 sidee loo kala qaada, qaabkee. xanuunada qaar galmaa lagu kala qaadaa, qaar neeftaa lagu kala qaadaa, qaar dheecaanka, qaarba waxbaa lagu kala qaadaa. marka maxaa lagu kala qaadaa. marka xanuunkii waxaynu kusoo koobnay oo taa marar badan laga soo hadlay 3 qaybood in loo kala qaado. waxaan loo yaqaano droplet oo ah hindhiso ama qufac soo duulaya oo qofkii meel ka soo gaadho jooga soo gaadhaya, deetana qofkii sidaa ku liqayo oo sababadiisii jidhkiisii uu ku galayo. ta labaad waa contact, dadkii oo kulma oo isku yimaada deetana kala qaada. ta saddexaadna waa qofkii oo taabta meel wasakhaysan oo coronavirus ama qof xanuunsanaya taabtay oo aad sii taabato. saddexda waaye waxay noqonaysaa markaa ta ku xigta xanuunkii ma loo hayaa dawo? maya, waa in la raadiyaa wey jawaabtu. ma loo hayaa tallaal? maya, waa in la raadiyo. haddii xaaladii marka ay caynkaa tahay oo ay tahay dhibaatadii jirtay caynkaas oo ay sifahaa leedahay, waxa ay noqonaysaa marka arrimaha kale ku xiga waxay noqonaysaa taariikhdii in dib loogu noqdo, in culimadii public healthka iyo aqoon-yahanadii caafimaadku isku yimaadaan, la isweydiiyo arrimaha noocan oo kale adduunyada markay kusoo dhaceen maxaa lagaga hortegay, sidee wax looga qabtay, maxaa la hubaa oo hirgalay. caafimaadka jir wuxuu u baahan yahay wax la hubo uun in la hirgeliyo, waxaan la hubin waa xaaraan, maaha in la hirgeliyo. deetana waxay noqotay markii dib loo eegay, dhan walba laga eegay waxyaabihii soo dhacay oo pandemic flu iyo waxyaabo kale oo lamidii oo xanuun noocan u dhow ama lamidii ay soo dhaceen oo aan dawo lahayn oon talaal lahayn. waxaa keliya lagu yareyn karayo, lagu xakameyn karayo inuu yahay social distance ama physical distance ama non pharmaceutical intervention. saddexdaa oo mid isku mid una in dadkii la kala qoqobo, la kala xidhxidho, iskuuladii la joojiyo, shaqadii la joojiyo, dadku inay isku yimaadaan oo wax urura laga ilaaliyo, markaa bulshadiina kala xidhanto, shaqoo dhanna istaagto. wax hore loo soo sameeyey. meelihii yeelayna way ku guulaysteen oo way xakameeyeen. meelihii aan sidaa yeelin ee iska dhaga tirayna dhibaato culus ayaa gaadhay. soo adduunyadu markaa waxay u leedahay waa aragnimo. jidkii ayaa hadda la raacay, dabeetana adduunyadoo dhami ka wada hadashay oo marka wadan waliba saasuu ku dhaqangeliyey inuu hirgeliyo markii uu soo galay wadankiisa xanuunkale social distance. okay, taasi waa keentay markaa in caynkaa loo go-aansado si loo xakameeyo. waayahay xakameyntaasi markaa haddaba maxaa looga jeeda oo maxay tahay ujeedada aynu shaqooyinkii oo dhan loo joojiyey, iskuuladii oo dhan loo joojiyey? natiijada aynu gaadhaynaa maxay tahay? maxaa calaamada oo aynu ku garanaynaa in aynu guul ka gaadhnay iyo in kale?
maxaa qiyaasa oo aan qiyaas u isticmaalaynaa si aynu u fahmno o u garanno laba arrimood baa markaa muhima oo la doonaya in la ogaado maadaama xanuunkii dadka isqaadsiinayo oo u baahayu ku fidayo laba arrimood in la ogaado waxaa la ogaanayaa number 1 ama kow waxa la yidhaahdo basic reproduction number. Basic reproduction numberku waxa weeye qof kasta oo xanuunka qaada imise qof ayuu qaadsiinaya. xanuunadii waxay ku kala duwan yihiin nooc hawadu ku raacaya nooc yani xanuunba waa nooc markaa kani waa droplet oo hindhiso iyo qufac. xanuunada noocaa hindhiso iyo qufac lagu kala qaado waxaa hore loo soo arkay inay yihiin 2 ilaa 3 micnihii hal qof markuu qaadaba inuu qaadsiin karaayo 2 qof ilaa 3 qof. so taas waa wax la yaqaano oo inta badan loogu yahay waa averageka qof baa 5 qaadsiinayo qof baa 6 qaadsiinayo laakiin celcelisaha in qofkii 2 ilaa 3 qaadsiin kara. taa micnaheedu waxa weeye haddii hal qof xanuunkii qaado wuxuu qaadsiinayaa haddii 3 tahay 3 qof. 3diina midkiiba 3 buu qaadsiinaya waxay noqonaysaa 3 ku dhufo 9. 9kiina mid waliba 3 buu qaadsiinaya 27. hadday tiradu markaa badanto kun tahayna kunkii qof waxay qaadsiinayaan 3,000 times 3 waxay noqonaysaa 3,000 times 3 9,000 dabeetana 3 ku dhufo 27,000. marka sidaasay tiradii u badanaysaa oo ay u kordhaysaa. taasi marka waxaynu halkaa ku ogaanaynaa marka tirada qaadaysa xanuunka ay sii badataba dadka qaadaabataba dadka ay sii qaadsiinayaan inuu sii badanayo arinku kor u soconayo. bulshadii caynkaa kuma socon karto xidhxidhniinkii aanu xidhxidhaynay waxaynu u baahannahay marka inuu taa dawo u noqdo oo u daweeyo oo is-araggii dadka markaan kala xidhxidhno waxa soo yaraanaya dadkii qaadayay waxa yaraanaya dadkii ay sii qaadsiinayeen. halka aynu ku soconno oo arrinkeena labaadna waxa la yidhahdaa effective reproduction number. kaasina waa halka aynu ku soconno yaraanteennii aynu wixii yaraynay oo ahayd halkii qof inuu 2 ilaa 3 qaadsiinayay halkay maraysa. waata aynu doonayno markaa inaanu ku furfurno toorana waynu ku xidhnay markay cirka martay tan dambana waxaan ku furfuraynaa statekii ama wadankii ama qaybtii aynu maamulin ayaynu ku furfurayna. marka qaybtan dambe oo effective reproduction number waxay yeelan kartaa marka 3 waji ilaa inta hore waa joogto qofkii 1 ilaa 3 buu qaadsiin karaa 2 ilaa 3. tanna waa marxaladihii uu marayay marka 3 waji ayay yeelan kartaa. halkii qof waxa uu qaadsiin karaa 1 iyo ka badan ayaynu leenahay ta hore 1 iyo ka badan. taas xaaladaasi markay jirto xanuunkii kor buu kacaya uu kordhaya maalin walba furfur iyo wax u dhow ma jiro waa in wax laga qabta in hoos loo dhigo. okay taasi caynkaa markay tahay oo dadaalkii oo dadkii kala xidhay oo dadaalkii la samaynayo marxaladda ku xigta oo loo gudbayo waxay noqonaysaa effective reproduction numberkii inuu noqdo 1 micnihii qofkiiba inuu qaadsiinayo 1 qof. marka qofkuba 1 qof qaadsiinayo waa isbedel. qof cusub ayaa xanuunkii qaadaya midna waa bogsaday way isbedelayaan tiradii isma bedelayso caadi bay ahaanaysa inteedii bay ahaanaysa isbedel ma jirin. haddii qof dhinto qof cusub baa xanuunkii qaada marka qof bogsado qof cusub baa qaada marka tiradiiba ayaa isleekaanaysa micnihii laakiin arrinkii hoos buu soo dhacay. marka ayaan bilaabaynaa inaan madaxa la soo kaco dhahno okay xaaladii hadda way fiican tahay oo xakamayntii aan samaynay way dhaqan gashay oo dhaqankii dadku way dhaganuglaadeen way dhegaysteen way is ilaaliyeen maamulkii iyo dadweynihiiba si wanaagsan bay u shaqeeyeen. markaas ayaa loo soo jeedsanaya in hawshii hoos loo eego oo la yidhaahdo aan hadda eegno. okay taasi markay dhacdo oo la isla garto in ay tahay 1 halka aynu ku soconnaa marka waa arrinka 3aad oo ah
muxuu ahaa effective reproduction numberkeena waxaan u baahannahay inuu hal ka yaraado. hal markuu ka yaraado micnaheedii 0.9 0.8 hoos u socdo micnihii dabdamaya. marka micnaheedu waxa weye giraafkii kor u kacaayay markay 1 noqoto constant buu noqonaya, no change. markay hal ka yaraatana hoos buu dhacaya 0.9 0.8 micnihii waxaynu gaadhaynaa xad qofku inuu qof ka yar qaadsiin karayo, oo ay mararka qaarkood noqonayso hadday 0.5 tahay labadii qof oo xanuunka qaaday inay qof qaadsiinaya, which is hoos u dhac xoog. marka ayaa maamulkii wuxuu ka fekeray oo uu leeyahay maadaama hadda ay marayso 0.5 0.6 hadda in la furfuro, tartiib loo furfuro, taxadir lagu daro. marka waxaa la doonayaa markaa taa in dadaalka lasii wado oo hoos ay u socoto sidii dab baktiyaya ama damaya, oo hoos ay u socoto. marka taas waata markaa looga gol leeyahay in arrinkaas lagu guuleysto oo uu caynkaa noqdo. taas waxaan rajeynayaa inay markaa inoo caddahay, oo gobolkeennan Minnesota oo kale imika muddadan dambe oo dhan cirkuu maraayay, now waxoogay buu hoos u soo dhacaya. waxaa loo baahan yahay marka inuu weli hoos u soco, waayo statekeennan imika waxaa la siyaadiyey testing, oo waxa weeyaan muxuu ahaa waxaa ilaa hadda la sameeyey 143,000 oo tasti. waxaa laga helay cudurka wax ku dhow 15,000. this means waxa xanuunkii qaba inaga halkan Minneapolis 10% ayaa qaba. tiradaa la leeyahay markaa 15,000 baa qaba. waxa suuqa ku jira 3 laabkeed 4 laabkeed oo aan la ogeyn, oo hadda markii la sameeyey waxaa la ogaaday 20% boqolkiiba dadweynaha inaanay calaamad lahayn, oo aan cidina garan karayn, iyaguna aan isgaran karin. marka had iyo jeer tirada aad iyo aad bay uga badan tahay. laakiin statekeenu waxyaabo aad ugu fiican yahay waxa kamid oo kale testing ayay kordhiyeen. marka testingka la kordhiyana dad badan oo xanuunkii qaba ayaa la ogaanaya, dabeetana lala tacaalaya, lala talinaya, wixii loo qaban karo loo qabanaya, in la kaaraantinameeyo, la isolate gareeyo, wixii hawlahoo dhan loo qabanaya. taasi marka waa arrin faa'iido ah. marka imika inagu aan idhi waa 10% Minnesota, micnihii sharciga guud oo xaggii public health wuxuu noqonayaa waxa la yidhaahdo 20-80. micnihii bulshadeennii 20% markay xanuunkii qabaan waxay qaadsiinayaan 80%. soo jaaniska 80% ay xanuun ku qaadaan way badan tahay marka 20% qabaan. waa xaalad adag. waxaanu rabnaa taa inaynu kala bedello oo 80ku ay bad qabaan oo aanay xanuun 80ku ay okay yihiin oo fayow yihiin, marka 20ka la qaadsiinayo xanuunka. waa tiro yar marka oo la ilaalin karo, la manage gareyn karo. marka arrinkii 2080 ahaa ayaynu ka dhigaynaa 80-20 si intii yarayd loo ilaaliyo. taasi waa meesha aynu ku soconno aynu doonayno. taasi markaa waa qaabka aynu doonayno in hawshu u socoto oo loo manage gareeyo. waxaa markaa Minneapolis oo kale imika maadaama uu hoos u soo dhacay, sida ay u socoto marka la arko muddo 2 weeks ama 2 wiigoo isku xiga oo tiradii yaraatay sii yaraatay, waa dabkii oo baktiyaya. deetana wuxuu gaadhayaa xad ah markii xanuunku bilaabmayey mid la mida, markaa baktiga nimka uu baktiyayo iyo markuu bilaabmayo dabku ama mawjadu. micnihii waxaa la yidhahdaa wuxuu ku bilaabmaan hirar yaryar, dabeetana mawjado waaweyn. markaa hirarkii yareeraa oo ku bilaabmay kuwa lamida ayaa ayaamaha inagu soo socda the next 2 weeks la arki doona. marka taa la arko furfurkii waxa ku xigaa weyn, ujeedadii laga dan lahaa way shaqaysay, hadafkiina waa la gaadhay, iyadoo markaa taxadir lagu darayo oo markaa khubradii arrimaha qaabilsan ay ka tashanayaan oo eegayaan. dabeetana la doonayo in la ilaaliyo pocketska ama meelaha xasaasiga ah
hawl la filayo inay wax ka jiri karaan ama dadku ku kulmi karaan oo lagu kala qaadi karo fiiro gaara la siinayo iyo iyada oo markaa guud ahaan dadweynihii dadkii xanuunada gaarkaa qabay dadkii saboolka ahaa oo hadday rabaan jaaniska ka faa'iidayso shaqo tagoo meelo xagga u carar ilaalin guud loo samayn lahaa marka taasina taxadirkaas u baahanta taasi markaa waa xaggii furfurkii iyo ujeedooyinkii laga lahaa oo statekeena si wanaagsan u socda haddaan barbar dhigno muxuu ahaa New York waxyaabihii ka dhacay oo kale New York tirada aynu soo sheegnay gobolkeenan tirada hore waa 2 ahayd oo qofkiiba 2 qof ayuu qaadsiinayay taa markaan barbar dhigno New York waxay noqonaysaa in qofkiiba inta qof uu qaadsiinayo 3.8 sababaha ugu wacan waa inooga sarreysaa waxa weeye population density micnihii waa daaro dhaadheer dadkiiba waxay ku nool yihiin dhul yar oo kooban marka dadku sidaa jiq u yahayna kala qaadistii xanuunku aad bay u saameynaysa so that's why inooga sarreysay that's why dhimashadu ugu badanta that is why healthy care-koogii u noqday mid laga awood batay oo dadkii meel ay kala dhigaan waayeen oo culays laxaad leh while Minnesota capacity-ga caafimaadkeenu ilaa hadda ma buuxo oo haddii imika mawjado kala kacaan weli waxa bannaan sariiro badan waxa bannaan IC units ayaa inoo bannaan so sidaasay markaa meelihii lagu badnaa iyo meelihii kale dabeetna labadaa meelood markaas barbar dhigto furfurkoogu aad buu u kala duwanaanaya sharciyadii lagu dhaqayay nidaamkii lagu dhaqayay u kala badanaya dakhligii dhaqaalihii iyo kharashkii u baahnayna uu kala badanaya marka in New York oo kale waxa u baahan tahay waxaad dhaaf laakiin inagu waa ka sahlanay halkan Minnesota taas waa qaybta labaad ayayna taa ku koobaynaa oo aan isleeyahay ilaa xad xoogay waa taaba waqtina waa inoo ilaalinaya waayo qorshaha guud hadda marka la sameynayo oo qorshihii caafimaadkii la sameynayo oo la doonayo emergency-ga sida COVID-19 in la caabiyo oo xanuunkii laga adkaado caafimaadkii gobolka ama stateka ama wadanku waa inuu model samaystaa markaa modelka ugu qurux badan ee loo sameeyo waxa weeye waxa la leeyahay dadkii oo dhami dadkii waxay ku kala duwan yihiin 20 30 40 50 60 80 ay ku kala duwan yihiin oo da-un baa u dhaxaysa waxay ku kala duwan yihiin oo kale in kamida dadkii ayaa xanuun qabta inina ma qabto markaa dadkii waxay ku kala duwan yihiin da iyo xanuun labadaa qaybood oo dadku u qaybinayna modelka guud ee ugu horeeya waayo dadka haddaba oo dadkii oo dhana qof kastoo ka midihii waa ku dhici karaa xanuunkii COVID-19 waa fallaadhii cirka loo garay la wada filay qof kastoo ku dhici kara maamulkuna qof kasta inuu ka ilaaliyo kala taliyo susceptibility oo susceptible ayuu qof kasta noqonaya uu filanaya way dadkii ma wada fishay in kamida ayaa xanuunkii ku dhacaya marka uu haleelaya by chance exposure uu taabtay way xanuunkii ma taabtay waxa loo baahan marka xaqiijin oo xaqii science public health iyo caafimaadkii hadal ma jiro xaqiijin itaabsi wey dadkaas exposed-ka ah cabashada la yimid xumad leh qufacaya neeftu ku dhagayso cabasho la yimid ama la ogaaday in la baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo marka la xaqiijiyana waxa la leeyahay waa infected marka qofkii xanuunkii ayaa haleelay oo ku dhacay okay dadkii haddana in kamidii maxay u baahnaanayaan waxay u baahnaanayaan in dhakhtar la dhigo qaarkood qaar aad bay u daraanayaan waxay u baahanayaan IC unit in la dhigo or ICU in kamida intii la dhigo ICU way dhimanayaan intii soo hadhay oo dhakhtarka la dhigay iyo intii ICU-ga way bogsanayaan taas ayaa wareegaysa marka oo cycle-kii ama modelkii ka ayuu noqonaya mid cusub baa soo galaya mid cusub waa dhimanaya waa ka baxaya waa bogsanaya taas ayaa loo baahanya marka in la adkeeyo sidee loo adkeynaya marka waa in la sameeyo testing xad dhaaf cid kastoo cabasho keenta in testing xoog leh la diyaariyo oo la sameeyo testingaa la sameynayo waxa uu noqonaya qof kastoo cusub oo laga helay
in la helo cidda uu la kulmo ee uu arkay isagii la sameeyo tiimam qofkaa laga helay ay qof kastoo laga helay wareysanaya meeshuu tegay cidduu arkay cidduu la kulmay dabeetana halkaa ay tracing ka sameynayaan oy dabagelayaan oo cid kasta oo arkay in lasoo arko case marka arrinka ayuu isku bedelaya kii dadweynaha dabagalkaa marka lagu sameeyo wax dabkii ayaa lasii baktiinaya waay dabagalkaa lagu sameynayo oo testing and tracing and contacting lagu sameynayo na in lagu daro marka oo loo isticmaalo in la sameeyo technology oo waxa weeye qofkan xanuunka laga helay waxa uu haystaa cellphonekiisu wuxuu sheegayaa meelaha uu tegay oo dhan adeeg markhaati u ah waay credit cardkiisu meelaha uu maroo dhan ayuu sheegaya okay technologygiina iyo applications lagu maamulayo marka la karantiinimeeyo meelaha ay joogayaan lagu monitor gareeyo lagu ilaaliyo marka tii traditionalkii oo lagu daray technologygu wuxuu sahlayaa in arrinkii fududaado oo marka si fiican loo magaranaysaa manage gareeyo ama loo maamulo okay waxaa loo baahan yahay marka haddii systemka ama modelka aan sheegnay laga awood bato oo tirada dadku ka bataan oo sariirihii iyo ICU-du yaraadaan in lasii sameeyo waayo dhaataha ku imanaya dadka ku imanaya waxaa laga garan karayaa mawjadaha soo socda inay buuxinayaan isbitaaladii iyo meelihii iyo in kale marka haddii la filaayo inay buuxinayaan in lasii sameeyo meelo kale oo ku meel gaadha oo dadkii la dhigo si aan dadkii xanuunka qabay iyo dadku isku dhex jirin taasina waa arrin kale oo loo maareynayo haddii la yeeli waayana waxay keenaysaa marka in howluhu ay noqdaan dabki inaanu damayn arrinkuna sii soconayo taa marka aynu intaas ku koobno healthy care systemkii marka ayaa adduunyadii iyo caalamkii ku kala duwan yahay oo wadamana waxay leeyihiin healthy care system central ah oo dowladdii dhexe maamulayso oo kharashkii hal meel ka soo baxayo go-aankiina hal meel ka soo baxayo waa Canada agteena waa Ingiriiska waa wadamada Yurub oo dhan Australia kulli hal meel ayaa laga manage gareynaya oo meelaha qaar dowladdaaba leh meelaha qaarna cid gooniya gacan ku haysa laakiin midna macaash lagama doonayo waa daryeelka bulshada waxay aaminsan yihiin caafimaadku inuu kow yahay oo bulshadu inay caafimaad qabto dabeetana wax soo saarka waddanka iyo dhaqaalaha waddanku inuu hagaagayo nidaamkii Maraykanku marka taa waa ka duwan yahay Maraykankii waxa maamulaya stateski ayaa maamulaya ma laha Maraykanku nidaam dhexe oo ah national health care system the only national uu leeyahay waa kala yidhaahdo Medicare or Medicaid labada waa dadkii 10 sano shaqeeyay ka badan iyo dadkii dhaqaalahoodu yaraa oo xagga dowladda laga kabaayo laga siinayo caafimaad marka nidaamkii haddaba Maraykanku oo dhinacaas insurance-ka ahaa wuxuu ku eegyahay goboladiina sharikado yaryar ayaa gacan ku haya marka arrimahan oo kale marka ay yimaadaan oo emergency-gan kontonkii stateba waxay u baahanayaan duruufo gooniya in dowladdii dhexe ay ka kaalmayso way ku adkaanaysaa markaa dowladdii dhexe waxaasoo kharash oo laba filaan inay markaa ka caawiso taasi waa ta keentay markaa Maraykanka in go-aamadii dib u daahaan in la isjiidjiito in testingii dhaqso loo keeni waayo in xoogay meelo badan su-aalo iyo constitutional issues ka yimaadaan xoogay markaa ayaabaha inay arrimo badan jiitameen taasina waa ta sabab oo ah markaa Maraykanka in arrimihii cirka maraan oo bahalkii cirka maro dadkii dhimanay ciidda ka bato dadkii qaadinay ciidda ka bataan Maraykanka oo dhaqaale adduunyada koowa technology koowa aqoontii koowa taasi waxay Maraykanka hadda u muujisay Maraykanka dhexdiisa iyo adduunyadaba in Maraykanku halka aad ugu liito oo wadamada kale ka fiican yihiin isagoo caafimaadka ka technology wanaagsan ayaa systemka uu dhisan yahay
aanu ahayn system bulshadii oo dhan daryeelaya oo bulshadii oo dhan ay leedahay caafimaad ay ku kalsoon tahay. marka qofkaan haysan insurance dawadiisii waxyaabaha qaar inay adkaanayso inkastoo iminka covid arrinkaasi aanu jirin oo xagga la dariya la daboolay. markaa taasina waxay muujisay daldaloolada uu leeyahay caafimaadka maraykanku, waxayna mustaqbalka noqon doontaa nidaamka caafimaad ee maraykanka in wax weyn laga bedeli doono, oo haddii kale sidan kuma socon karo. waayo xanuunada noocanihi mustaqbalka way soo badanayaan. xanuunada noocanna waxaa la yidhahdaa zoonotic disease, oo cimiladii kululaatay ama isbedeshay waxyaabo badan oo ka dhashay ayaa la filayaa mustaqbalka inay yimaadaan xanuuno cusub, waxyaaba aan hore loo arki jirin, disasters waaweyn. marka in caafimaadka maraykanka u diyaar garoobo oo lagu samayn doono isbedel baan rajeynaya haddii la idhaa. waxaad moodaa waqtiguna waa inagu yaryahay inaan intaa kusoo koobo. aada iyo aad baad u mahadsantihiin, waan salaamaya. haddana wixii su-aala insha allah soo dhawaada. maasha allah, shukran kate. waxaan umalaynaya dadka dhan way ku maqleen maasha allah, maadaama aad tahay caafimaadka dadweynaha qof ku takhasusay wax badan dowladda iyo caafimaadka iyo wax walba waa ka dhawaajisay. marka insha allah waxaan u daynayaa bulshada inay wixii su-aal qabaan ayagana su-aashooda soo daydaan. haddii aad su-aal qabto waxaad samaysaa numberka telefoonkaaga gacanta, numberka *6 taabo sida oga baxda mute-ka oo su-aasha u weydiisa kate insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنتي تراثيرته ماشي كجرته. لابد سؤال عن ربعنا ويدي سؤال وحاس كذا هذا معمولك سؤال أخترك يعني معمولك تنقول كل حتى سيد الفرح هي سيستم كي يعني مجال دي هي معيقين كان نصيب ودي دولتان. سؤال عن ربع أخترك هنا ويدي أنا وحاوي niyo maadaama hadda la furahayo magaaladii Mandayda hadda wixii ka dambeeya la leeyahay waa la furaya as a community ahaan waa bibitooyinkii moolashii dadkii xoogaa Soomaalidana wacyigelintii weli si fiican inay u gaaraan aad moodo afxirkii xataa lagu kari laayahay markaad dhex marayso say noo saameyn doontaa. way waa su-aal wanaagsan weeye. okay okay waa su-aal wanaagsan. marka innaga statekeena waa lagu tala jiraa in la furfuro oo tartiib loo furfuro, laakiin weli calaamadihii furfurku ma wada dhamaystirna. haddii calaamadihii furfurku aanay wada dhamaystirnayn oo ah 2 wiig oo isku xigta in la arko hoos u dhac hoos uu bilaabmay oo matalan dhimashadeenoo kale ma kordho. testingii waa la kordhiyey, marka testingka la kordhiyana tiradii way badanaysaa. marka yani mawjadihii way soo yaraanayaan, laakiin weli furfur la odhanayo waa la furfurayaa ma jiro. waayo haddii la furfuro waxaad moodaa in lagu degdegay furfurka. haddii furfurkaa lagu degdegana waxaa dhacaya mawjado kale ayaa dib u kacaya. taasaa ka daran muxuu ahaa tii aynu soo marnay. marka waxaa fiican inaan la degdegin, taxadir badan la sameeyo, la hubiyo inuu arrinku sidii loogu talagalay u shaqaynayo, oo arrinkii aan soo sheegnay oo ahaa effective reproduction number inuu halka yar yahay 0.6 0.5 yani tiradaa yar inuu yahay. weli taamaynaan gaadhin. marka haddii la furfuro moolashii la isugu yimaado oo dad badan isku yimaadaan, mawjado ayaa dib u kacaya. markaa taasi ma dhowa. waxaa laga yaabaa inay noqoto ilaa bartamaha bisha June inay noqoto ayaa la rajeynaya. laakiin furfur hagaagsan oo la sheegi karo ayaamahan ama isniinta dhici maayo. saasaan rajeynaya insha allah. shukran. haddaad taas ku dara
jeediyey waxaan malaynayaa su-aashaada way dabaracsaneed maadaama aad ka dabaajisay adiga naftirka oo dhahday bulshadeena si fiican wacyigeliska weli uma gaarin oo weli sidii la rabo ma samaynahayn marka maadaama saas ay jirto taas dhinaceeda waxaa weeye annagana waan wadi doonaa insha allah wacyigelinta intay karaankeena insha allah سؤال قفك كلاقة إن شاء الله نمبر كاستا 6 ترى بعد الميزك هاد سؤال شو يديس إن شاء الله كي تداني أنقذ الله والسؤال أنا رسول قناة جيتي وأنا السؤال استعمالك maadaama mar walba laga dhawaajinaya biyaha iyo saabuun in gacmaha lagu dhaqdo farqiga u dhaxeeya haddii gacmo biyaha bisadaan ku dhaqda iyo saabuun la-aan aan ku dhaqanin farqiga u dhaxeeya ayaa raba inaan ogaadaynaa su-aasha hore way waa su-aal wanaagsan weeye insha allah marka waxa weeyaan in biyo lagu dhaqdo iyo in biyo iyo saabuun lagu dhaqdo keebaa wanaagsan waxa weeyaan haddii lagu dhaqo oo gacmahaagii ay soo taabteen meel wasakhaysan oo coronavirus yaallo oo gacmahaaga uu la socdo haddaad biyo ku maydho biyahaasi waxba kama taraya awalan eeg markaad la hindhisayo marka la qufacayo biyihii iyo coronaviruskii baa wada socda haddii biyuhu xadilayaan ama ay dhaawacayaan intaa uu sii duulaayo hindhisadii iyo quficii ayay biyuhu waxyeeli lahaayeen sidaa awgeed waxa cad biyuhu inaanay waxyeeleen mar labaad haddii aad ku maydhato gacmahaagii biyo waxaynu nidhi muxuu ahaa coronaviruska dusha sare waxaa kaga dahaadhan xuubkaas marka biyuhu taabtaan waa taabasho keliya waxba ma yeelayaan biyi that's why loo yidhi biyo keliya iyaan lagu maydhanin waayo wax alla waxay ka tarayaan ma jirto maxaa dhacaya markaad saabuun iyo biyo ku maydhato oo ah shayga ugu fudud shayga ugu wanaagsan waxaynu hore u nidhi innaga waxaynu ka koobannaha unugyadaa jidhkeenu ka kooban yahayna waxa weeyaan waxaa ku dahaadhan xuubkuna wuxuu control oxygentii nafaqa nutritionkii raw materialki marka xuubkeenna unugeenna xuubka ku dahaadhan iyo coronavirus xuubka ku dahaadhan waa isku mid okay laakiin coronaviruska xuubkaa ku dahaadhan waxa uu ka kooban yahay moleculardaas wuxuu leeyahay laba cidhif xagga chemistryga cidhif muxuu ahaa biyaha jecel iyo cidhif biyaha necab saabuuntuna waxay ka kooban tahay laba cidhif saasoo kala mid biyaha jecel iyo mid biyaha necab saabuuntii markaad ku maydhato marka oo saabuuntii ay taabato coronaviruska xuubkii ayaa dilaacaya coronaviruskiis haystay wuu kala daadanaya marka hore wuu firfircoonaa markuu xuubku dhaawacmayna wuxuu noqonaya mid aan firfircoonayn cidna aan waxba yeelin that's why loo yidhi had iyo jeer waa in lagu maydhaa saabuun iyo biyo oo ah shayga ugu horeeya oo mar kastaba inaad isticmaasho loo baahanya waxaan ku dari lahaa markaa taa haddii aad weydo oo halkaa aad joogto saabuun iyo biyo aanay jirin waxaad isticmaali kartaa sanitizer isticmaali karta okay شكرا سؤال قفكي قوى إن شاء الله نمبر كاست 6 ساميت وغا بعد السؤال شو يديس إن شاء الله سؤال انت لصوت السؤال كلا او تا دبطانا waxay ahayd hand sanitizer maadaama uu leeyahay 60% ama 60% alcohol uu leeyahay wuxuu qofka weydiinayaa maadaama samar la soo gelihaya haddii gaariga looga tago oo kale kuleelkaas alcohol wax muu dhibi karaa gaariga dhexdiisa maadaama dad qaarkood gaariga uga dhex tagaan
sanitizerku waa alcohol oo wixii inagu aan odhan jirnay markaan Soomaaliya joogno waa spirito iyo alcohol oo waa laba shay waa ethanol iyo isopropanol ama labadaasoo isku jira marka sanitizer wuxuu ka kooban yahay 60% alcohol ugu yaraan buu ka kooban yahay sanitizerku waxaan haddii saabuun iyo biyo la waayo waa shayga la isticmaali karo labada arrinka su-aashu sida kaluu noqonaya haddii coronaviruskii gaadhiga ku dhex jiro oo ay samar tahay oo aad qofku qabo oo meelu taabto gaadhiga ku dhex jiro saacado badani ka soo wareegaan oo coronaviruskii halkaa ku jiray temperaturku ama heerkulku aada u kululaado biyuhu ka baxaan wuu dhimanaya haddee maalin tahay haddee laba tahay lama yaqaano time laakiin mar alla marka biyuhu ka dhamaadaan maadaama ay kulushahay wuu dhimanaya laakiin sanitizerkii halkaa yaalay uma baahna sanitizerku fridge uma baahna waa alcohol ethanol markaa leenahay in chemistry C2H5OH uma baahna marka kulaylka uu ku dhex jiro gaadhiga dhex yaalla waxba kama bedelayso waxba ma yeelayso sidiisiibuu ahaanaya markaad kusoo noqoto waa isticmaali kartaa mar walba haddaad gaadhiga kaga dhexso wax dhibaati ma jira uma baahna inaad fridge dhex geliso ood qaboojiso alcoholku sideedana haddii kulayl badan aad dareento uumi bax baa ku dhaca tan maadaama ay xidhan tahay ma uumi baxayso marka halkaasun bay ku jiraysa intii uumi baxda dib ugu noqonaysa hadday baxdo dib ugu noqonaysa markaa waad isticmaali kartaa wax dhiba ma jirayso waxna ma noqonayso insha allah qofkii su-aal qaba fadlan usoo dhawaaw numberka *6 oga baxda miyudka aa su-aasha weydiisa insha allah waxaan u malaynayaa haddii qofkii su-aal qabin insha allah waan soo dhaweynayna qof alla qofkii su-aal qaba marka waxaan u malaynayna insha allah waxaan u gudbi doonaa qaybteena gabagabadii iyo gunaanadkii insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan habeen walba oo jimcaha iyo sabtida iyo xadda oo waqtiga 9:00 ilaa 10:00 waqtiga Minnesota aan soo galna hawada oon keenna dadka dhaqaatiirta iyo naasaska iyo public healthka inaan yani dadka keenno si su-aalo loo weydiiyo wixii bulshada ay qabtana su-aalo ay weydiin karta insha allah dadka gobolka Minnesota degan waxaa number ayaa waxda caafimaadka u samaysay oo 651-201-3920 aad wici kartaa waqtiga weekdayska 8 ilaa 6 galabnimo si aad su-aashaa qabtana u weydiin doonto insha allah taas waxaan insha allah isku dayi doonaa inaan soo gunaanadna marka Kate waxaa ugu dambeyn summarize noo sii insha allah waa mahadsantihiin waxa weeyaan maxaa dha ma maqlaysaa hallo
kor u qaad laakiin